laba waxaan tilmaamaya waxa weeyaan qiraa'adu hadaf bay u baahantay in hadafka la taxdiidiyo goolka aad qiraa'ada ka leedahay oo qiraa'ada laguma qiimeeyo tirabadnideeda ama dherarkeeda ee waxaa lagu qiimeeyaa diqadeeda iyo qiimaheeda yani waxaad akhriyaysaa siduu faa'iido u leeyahay marka qofka uu rabo inuu wax akhriyaa dhallinyaradii waa inuu isweydiiyaa maxaan akhrinayaa sabab baan u akhrinayaa qaabkaan u akhriyaa maxaan akhrinayaa waa inaan isweydiiya waxaad akhrinaysa oo dhame hadday tahay manchester baa liverpool ka badisay waxaad habeen iyo maalinba akhridaa hadday tahay waxba faa'iido maysid waxaad maalin iyo habeenba akhridaa hadday tahay jariidada sheekadan bejka koowaad ku qoran something waa laga yaabaa languagekaagu in yar inaad wax akhriyi karta u yaro dhismo laakiin qiimo nololeed ma leh wax kaasoo raacaya ma jiro waxaad akhrinaysaa markaa waa inuu noqdaa wax hadaf leh weliba wuxuu siday u kala muhiimsan yihiin qofka waa inuu akhriyaa kow waxa waajibaadka ku ah waa inuu akhriyaa ee diintiisa kaga waajiba laba waxa takhasuskiisa waa inuu akhriyaa ee uu baranayo dadka badh baa wax akhriya haddana ummiya adigoo wax akhrinaya si aad u tukata haddaad garan weydo qiraa'adaada faa'iido ma leh professoraa salaada tukan karayni ama garanayni salaadiisa waxay ku ansaxaysaa qiimo ma leh idan waxaad akhrinayso waa in la garan karaa hadafka aad ka leedahay qaabka wax loo akhriyana waa kala gedisanyihi waayo waxaad akhrinaysa buu ku xidhayay mar waa qiraa'atu tasliya oo waad iska rogrogaysaa yani buug taariikha ama sheeka ama novela ama wax la mida sida loo akhriyaa waa si gaara buug cilmiya markaad akhrinaysana waa qiraa'atu tafahum wa tadabbur waa ka gedisantay waayo sentenisyada dhexdooda la akhriyaa markaad qiraa'a istikshafiya mutaalaca guud markaad samaynayso qaabka loo akhriyaa uu kala gedisan yahay idan buugga aad akhrinayso iyo hadafka aad ka leedahay waa in la garan karaa laakiin qiraa'adu waxay u baahan tahay sabir iyo isbaris wax walbana sabir baa lagu gaadhaa Thomas Edison odagii la odhan jiray ee Maraykan marka laga reebo casrigan dambe ragga wax soo saaray dadkii hore ama qarnigii 20aad qaybtiisii hore ilaa iyo intii la garanayo waa ninkii ugu badnaaye inventions lahaa wax soo saar ikhtiraacad iyo baan filayaa 93 baateen buu leeyahay 9 ka mid waa dhisayno 1480 baateen oo ah qalab uu soo saaray ayaa waxay weydiiyeen abqarinimadu maxay ka koobantahay bay yidhaahdaan ma ilhaam ba wuxuun ilaahay kugu ilhaamay fikrad kugu soo dhacdayba markaasaa wuxuu yidhi 1% waa ilhaam 99 waa carqu jabiin buu yidhi waa dadaal iyo sabir waxaan uga jeedaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaynu u baahan nahay qiraa'ada markaynu leenahay wax akhri marka hore qofku qiraa'ada uu bilaabayo way ku dhib badan tahay maalmaha hore waa daal miidhan waxay u baahan tahay inaad qiraa'ada